بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo guud ahaan 24 saacadood oo ugu dambeeyay waxa soo kordhay xaaladaha coronavirus aan dib uga noqdo 48 saac oo ugu dambeysay waxa soo kordhay 73 xaaladood waxa rag ah 51 waxa haween ah 22 dadkaas waxay kala joogaan Puntland 25 ayaa laga helay Somaliland waxa laga helay 19 Banaadir waxa laga helay 17 Koonfur Galbeedna waxa laga helay 12 da'da inta ay u dhaxayso dadka laga helay 48 saacad oo ugu dambeysay 20 jir iyo ka yar waxa laga helay boqolkiiba 4 20 ilaa 39 waxa waaye 27 boqolkiiba 40 ilaa 59 waa 44 boqolkiiba 60 sano iyo intii ka weyna waxa waaye 25 sano tirada guud ee dadka laga helay dalkeena waxay gaaraysaa 1357 xaaladood waxa u geeriyooday laba qofood Allah u naxariisto oo ku geeriyooday Somaliland tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tagaysaa 55 waxa ka bogsatay 13 qofood tirada guud ee dadka bogsoodana waxay tagaysaa 148 ku celinayna mar kale in cudurkan in la xakameeyo ay muhiim tahay in la dhowrsado la kala dhowrsado inaanan la salaamin in gacmaha iyo nadaafada guud dhaqida lagu dadaalo in meelaha ciriiriga la iska haayo in qofka markuu banaanka u baxayo uu baxo hadii uu ka maarmi waayo markuu baxayana uu isticmaalo af xirka ama mask waxa loo yaqaan muhiim ay tahay in laga ilaaliyo cudurka calaamadaha markii la arko qof qabo ama reerka la degan in isla markiiba uu raadsado kaalmo caafimaad dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka calaamadaha ay bixisay waxa jira nambar loogu talagalay oo free ah oo qofka wacan karo macluumaadkii cudurka loo sheegi karo in qofka hadduu xanuun dareemo uu raadsado rug caafimaad meesha ugu dhow inay muhiim tahay mar walba in bulshada lagu baraarujiyo qaybaheeda kala duwan qof kasta uu waajib ka saaran yahay naftiisa waalidkiisa walaalihiis iyo bulshada inta kale cudurkan in la xakameeyo aad muhiim u tahay waa cudur aan daawo lahayn in qofka la kaalmeeyo maahe siiba dadka cudurrada raaga qaba ama da'da ah inay xanaano gaar u baahan yihiin in qof walba oo bulshada kamid ay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyo cudurkaasi uu faafo ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibkiisa iyo afadiisa inuu naga haayo ramadaanka fadligiisana uu nagu cafiyo oo ilaahay noogu naxariisto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mahadsantiin.